صلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. دمان والد السلام يا marka laga bilaabo ugaaska Samaroon, ugaas Cabdirashiid, ugaas Roble, ugaas Dooti, ugaas Ciise oo ah ugaaskii 18aad ee reer Sheekh Samaroon ama gada bulshada marka laga bilaabo ilaa iyo salaadiinta Samaroon wax garadka Samaroon dhalinyarada haweenka gurubadaas oo dhan iyo carruurta yar waa salaamaya waana u ducaynaya waana ku hambalyeynaya shirka quruxda badan ee ugaasku ku dhawaaqay ku yabahay la qabto adana aad suurta geliseen hay'ad tiraahdeen degdeg uga soo qayb gashaan waan hambalyeynaya yahayna ku midhadala oo khayr la Allah ka dhigo ugaaskana sharaf ku leh number 1 shirkaas oo aad u cadaadiyay number 2 gana muddada gaaban uu qabtay inta ka soo qayb gashay hawlaheedu soo dhigtayna aad iyo aad bay igu mahadsan khayr Allah siiyo ugaaska shirka ka mas'uula shirarkii ugu weynaa ugaasku ku yahay kaligi mid kamid oo muhiim weeye waxa dadka u sheegay inaad shirka la dhameystirtaan la shaqeysaan la hawlgelisaan tantii dibaa ku jirta midnimadii baa ku jirta shirka midnimada Samaroon ee lagu qabtay magaalada Awbarre la yiraahdo Awbarre magaalo weyn iyo magaalada kamid magaalooyinka ilbaxnimada Samaroon magaalo qaaliya weeye الله بركيه magaaladana والله inoo dhiso degmadii marka hore kaliya ahayda Samaroon lahaan jiray xagga Itoobiya bay ahayd oo muddo dheer soo jireysay jiga xukuumaysay ilaa dhul badan xukumi jirtay ilaa iyo maxaa ku raahdaa dagaxbuur xukumi jirtay soo yaraanaysay imikana ilaa Awbarre cidina laga gelinayo sida ayar loo gogoyay dabsan ilaa iyo laga gelinayo wajaale ما دعي دوتو وجهه waxay ka tirsan tahay oo ku darsanay inta Awbarre ka tirsan tahay degmada Awbarre ama gobolka Awbarre sidoo sidoo socdo iyo sida wanaagsan ee quruxda badan u socdo way nagu tahliilinaya way ku habalyeeraya Allah sii wado insha Allah midana Allah soo saaro intaasi waa taas talabaad muddo dheer baan u weydii maqran wari halka kii hawlgalka wadi ku jira kama fadhiisan waana wada midadal uu yahay midadal fi abu yahay midadalkiisana hadda laga bilaabo sirweyna dambe inaan isku noo ka qayb noqotaan wixii hawlgala iyo taabsana nala qabataan baa doonaya gurubkeeda nala qabataan iyo iniga leh midadalkiisana hadda la qaybsataan oo diyaalataan oo hawshan noo soo gashan hadda deedna shirarka dambana waa idin sheegi doona xilliga uu noqon doono ama ugaaska soo sheegi doona ama group kala soo sheegi doona midnimada ay tahay ka tagi weyday wax loo midaysan yahay hadda hawshan lagu xabaaro waxa aad leedihiin halka kumeelaha u maraya waxa kamid ah Soomaali ma haysan cid kale isbeena haysanin wali halkii baan ugu farinta la jooga na kamid ah Soomaalidana warin walba meeshiisa ha hagaajisto nin walba ha hagaajisto iimaankiisa iyo diintiisa iyo dhulkiisa bismillah yiraahdo oo carruurtiisa iyo dhulkiisa ha hagaajiyo qaxootiyada badahay naga tagay ha ka ilaaliyo carruurtiisa nin walba uu naga furiyo dhulku naga badan yahay dhulka aanu deganahayna meel kasta hadii ku yaalo midna uga tagay meena cid kale sharci dejinta u noqoto oo u daba fariisano cid kale kama ogolin walooyinkaas maxaa ku dhahdaa dhinaca ka timaadeen awdal iyo gabil iyo ma maamuli karaan maamulkeeda uma ogolin dib dambe loogu ciyaaro shaqada carruurtayada iyo loo diido maxaa ku dhalay dib ha uga fadhiistaan in xiyan nimanka uu yahay dadka dhulkayga maxaa ku dhahdaa cadaaladdu ay noqotay ka soo baxay wajaale iyo gabil iyo xildhibaanada soo dhigay kama yeelin hadda mari iyo galbeed iyo meesha doonto السلام عليكم ورحمه الله وبركاته